wiil iyo gabadh wax wada barta duruustana meel ka wada daalacda ayaa isla bilaabay jacayl biyo kama dhibcaan ah. waxa uu degay beerka, wadnaha iyo meel kasta oo loo nisbeeyo in uu jacaylku masallaha dhigto. inta uu ku dhex bulaalay ayaa uu ku laba qarxay. dareen kalgacal xambaarsan ayaa ay isugu baaqayeen had iyo habeen. fariimaha cishqiga sida ayaa u ahaa soor ay quutaan. berigaas aaladaha casriga ah ee lagu wada xidhiidhaa ma jirin, sidaa darteen layn guriga ugu rakibnaa ayaa codka u kala lalin jiray. dhawaaqa telefoonka ayaa mar kasta aqalka ka dhex yeedhi jiray. haasaawahooda aan kala joogsiga lahayd ayaa hakadgeliyey dadkii guriga kula noolaa. jaaniska ay markooda dhegta qabsan lahaayeen ayaa ay lafdhuun gashay ku noqdeen. telefoon kasta oo soo dhaca waxa uu wadaa dalabaad jacayl. axmed ma joogaa iyo deeqi ma joogtaa ayaa maqalkii dadka ku batay. warkoodii ayaa ku fiday labadii reer ee ay ka soo kala jeedeen. markii uu jacaylkoodii soo shaacbaxay, xamxamtiina badatay, qofkii ugu horreeyey ee giraanta socota soo dhex galaa waxa uu noqday axmed aabbihii. talo waayeelnimo ayaa uu u soo jeediyey inankiisii. haasaawaha in uu soo gabagabeeyo guurna u diyaargaroobo ayaa uu ku gubaabiyey. isaguna hadal kama soo celin ee hawraarsan baa uu yidhi. gacalisadiisii ayaa uu markiiba wacay, waxa uu ku wargeliyey in uu u soo geed fadhiisanayo. markii ay maqashay ayay farxad iskala garan weyday. midho intaa ay in badan sugaysay ayaa wakhtigii ay soo goy lahaayeen jooga. warkii muusoodka iyo bushaarada xambaarsanaa ayay ku taabatay aabbaheed, balse sidii ay filaysay wax uma dhicin. halkii uu ka soo dhowayn lahaa weji gabax ayay kala kulantay. arrinkii ay wadday in dhafayow laguma fiirin ee didmo ayaa uu odaygu ka muujiyey. waxa uu ku xujeeyey in ay waxbarashada dhammayso ilaa heer jaamaceed. 5 sano oo dambe ayay ku qaadanaysaa in ay soo gabagabaysaa, sidaas darteed uma cuntamin go'aankaasi. axmed oo war ka sugayey ayay la hadashay in ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen, arrintoodiina bariga dhexe marayso. ayay u sheegtay waa wax aanu filayn oo fajiciso ku ridaye. waxa uu talo ula noqday aabbihii. markii ay rogrogeen xaajada in odayga lala xididayo toos loo waco ayaa la isla gartay. judii loo soo bandhigay in inantiisa loo soo geed fadhiisanayoba qaylo ayaa uu afka furtay. markaas baa uu erayadan kala hor yimi, ma inanta yar ee wax baraynaysa ayaad rabtaan in aad mustaqbalkeeda seejisaan. ma dhacayso, arrintaana diyaar uma ihi ee sidaa ku abshira. axmed warkii la is yidhi loo sheeg. dhegiba jaan leekaatay oo arrimuhu ku cakirme. dareenkii jacaylka oo ciishoonaya ayaa ku laba kacleeyey. markaas buu joog iyo fadhiba diiday, hadalna ay kaga dhigtay, haddii aan inantaa la ii doonin taloba talo iima aha. sheekadii waa ay sii murugtay, xaalkiisu qiiro, jacayl iyo qaraacan buu marayaa. aabbihiina geed gaaban iyo mid dheerba waxa uu u koray sidii uu ugu soo xerogelin lahaa mudantii uu dumarba ka doortay. odayga deeqa dhalay ayaase ku noqday derbi adag oo aan la mari karin. deeqa oo sida axmed jacayl darani ku ogan yahay, waxa ay u tafaxaydatay sidii ay gacaliyaheeda u dejin lahayd, iyada oo ku waaninaysa in uu samir guddoonsado. sida ay ugu naseexaynayso ayaa uu marmar is yidhaahdaa, malaha dabkan kugu shidani iyada shidaba kuma hayo. kolkaas bay heestan ugu laabqaboojisaa. ibtilada ku haysa amba wayatalayo eridhaban sidiisan wololayaye ma iloobi karayo axdigii dhexdeena waan adkaynaya. dareenka in ay la qabto waxa u dheeraa culays kaga imanayay xagga qoyskeeda. telefoonkii ayaa laga jaray, xidhiidhkii tooska ahaa ee gacaliyaheeda kala dhexeeyey ayaa weerarka lagu ekeeyey. gaadh qorsoon iyo mid muuqdaba waa la duldhigay, balse jacaylkii jidgooyada loo galay ma joogsan ee ooda ayuu soo jabshay. inuu ku siyaado mooyee horjoogsigii waxba kama uu dhimin. waxa ay qayladhaan u dirsatay asxaabteeda si ay ugu kala dabqadaan iyada iyo gacaliyaheeda. wararka axmed in aanay ka kala goyn ayay u howlgashay. diif kastaa ha ka gaadhee, mar kasta waxa ay u heelanayd si aan dabku uga baktiyin. jacaylkoodu magaaladii buu gees kasta u dhex qaaday. sheekadoodii waxa ay noqotay taxane ay dad badani ku xidhan yihiin. hadba wixii ka soo cusboonaada ayaa loo dhegtaagi jiray. wakhtiga dheeraaday ee soo afmeermila ayuu axmed u noqday dhibane. waa bukaan soco tallaabadii in uu gabo wax yar u jira. iskuulkii wuu ka saahiday oo beryahaaba ma fooldhigin. maamulka iyo ardayduba way ka warqabaan. muddo ayay arrintiisu soo jiitamaysay ilaa uu markii dambe xakamaha goostay, waxbarashadiina ka soo ag wareegi waayey. xubbigii wuu ku sii xumaaday ilaa uu noqday maqane jooga. goor iyo ayaan waxa uu ku alaladaa magaceeda, iyada ayaa hor joogta oo aan qalbigiisa ka faaruqin sikin keliya.
reerkoodii talo ayaa ku caddaatay si alla iyo si ay sameeyaan ayay garan layihiin dib bay isugu noqdeen si ay xal midho dhal ah uga soo saaraan xaalka aan ka soo raynta lahayn ee inankooda iyo xabsigan adag ee jacaylku ku albaabay waxaa loo soo jeediyey in uu jawiga beddesho oo uu baadiyaha u baxo waa uuse ka gaws qabsaday ma rabo in uu deeqa ka fogaado magaalo in ay wada joogaan ayaa u ah naxariis oo nabdigu ugu degayaa horweyntii geela ahayd iyo haleeladii dhashay ee loogu baaqay in uu dhex tago oo caano ka soo dhammo waxa uu ka doorbiday in uu bandarka ku nagaado intii uu ku naloon lahaa neecow macaan oo gacalisadiisu ka maqan tahay waxa uu istusay in uu ismuugaysiiyo gugaa curtay ee daad ku muluciyeeyey masalooyin kale ayaa iyana la isku dayay in lagaga mashquuliyo deeqa iyo jacaylkeeda waase lagu hunubay qalbiga axmed ma ahayn mid si dhayal ah ku ilaabaya jacaylka buuga wehel jacayl la soco qaybta dambe insha allah barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadadka heshay waxaad tahay qof muhiim noo ah